السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا صاحبي البرت النجدة ونسمع بعرض فيشيال ما أنت يا نوبرتيا أبوان سليمان حسن ورسمة لوجرن وجهاي إلدب أبوان إلدب سود أبوان. بسم الله الرحمن الرحيم. halkani waa burco xafladda ka qabanayna waa Salebaan Xasan Ildab abwaan Ildab waxaan diyaarinaynaa insha Allah inaan wareysi yar kooban ka qaadno abwaan marka hore taariikhda oo kooban bal annaga iyo asxaabtoodna la wadaag insha Allah waayay taariikhda dawsiyo waxaan ahay nin miyiga iska joogi jiray iyo tuulooyinka ama burco waxa weeyaan magaalo daaweyn haddana waxaan ku garaadsaday iyadoo galabtii berbera baabuurtu raashinka kala soo dhaadhacdo subaxina ariga la dhaadhacdo saylad burca waa saylad sidoo marbay ilaa iyo cimrigan aan imika taaganahayna waa sidii guryuhun baa batay laakiin wax kale ismay bedelin dhaqanku waa dhaqankii waxaad noo sheegtaa markii kugu horreysay aad istiri waad gabi karaysaa ama aad isku aragtay hindisaha inaad gabi karto waqtigii kugu horreysay goormay waa neo iska muqawad baan ahaayo dee anigoo waxaan u diyaar garoobayba ma aha waa wax un ila kulma had iyo jeer oo anigoo iska soconayaba ya indhaha hortooda ka soo qabtaaba ya waxaan jaanisba u haya maahe waa waxaan la kulmoo iska duubown kugu soo dhacdaa ama waxaan maqlay aan ka sameeyo ya taariikh ama wax hadda soconaya sidii imika waxaan yeelay tigta layahay magaalada lagu soo dhex tuuray ee burca iyo laasacaanood iyo boorabuunbay imika ku koobantaha waa belaayo meel laga soo dira gaadhi ahaanna waa jasoo saacadda ama meeshaad doonaysay ku geynaysaa hadday doontana jidkaa kugula dhacaysaado way ku burburinaysaa inta qof kala taalla ee bugsan weydi ciiddaa ka badan ya birteedu waa sumaysan taha ya dadka walaagu maskax yariya bal waxaad nagu dartaa gabagii aad ka tirsay bajaajta ama tigta dhibteeda bal gabaygaa noo raac bendarkeedna togdheer iyo haddaad boora ma aado ama aad burca joogto laamiga bartankiisa iyo barbarkiisa aan raacin yay ku jiidhin bajaaj kuma baanan karayso iska daabarigooyo dawo kaa bixin mayso tuugta moobilka boobtiya dadan baawar lahayn iyo nin weyn oo iska buuran oo berya joogay caraajka iyo baalash laabeeri ayay ka badbaadi naftaadaanu leenahay dadweynaha waa tigta jaadka gabagii jaadka bal inaad hal iyo laba nooga taabato insha Allah waaya gabayga jaadka anigu muqawad baan ahaan jiray waagii hore qaadkaan iibin jiray marka waxaan qaadka la idhaahana dhaqan xumadu ka mid yahay iyo muqawadiintu afarta habeennimaan iman jiray anoo maanta o dhan guriga ka maqan naya laiga fur albaabka naya caddaad baan ahaa iga fur albaabka waraxba kaa furmayna raggii kaleba fiid ku yimaadaan markaad nagu garaacdaa naga toosin carruurta naga fur guriga wallaahi haddaad soo galo wallaahi inaan ilaah kaaga siina iga fur albaabka waraxba kaa furmayna carruurtii caalamawsiti ana xagay naga ifinaysaa naga ilaynaysaa ya xagay naga ifinaysaa naga ilaynaysaa ya shalay dirridaanu ahayn maantana gacan marin baa naloo tiriyey ya doorraadna waa hogay kabood baanu ahayn kamaanu cashayno kamaanu calluumano akudiyo qurbiyatiinka baanu helino
sabti baan nagu qallibanto sarfay baan maro nagu kala kacda agay naga iibinaysaa naga ilaynaysaa naga kurkuriga naaye wallahi ana allow kaaga sinaga parabaabka ana ma ka furmeen ragi kala ba gur fiid ku yimaada arurti aana ma usida ana u ka xanaaqa muqawdku way ka calaysiinaysaa walkiide ana qaad ku gelinaya arrimay waxaa guriga gabadhi naga istaabeenki maalintii qaadkii suuq waxaa naga istaa dhir galbeed naga keenay caleen baan dhilanayo dhaydaneedna ma seexdo dhiig baa iga yaraaday dhaxanta leelka dhacaysi adeeda kama dhuunto dhakada ay fiininta dhibta uu nafta yeeliyo dhaliishayda ma moogi wuxuu bay dhufsanaayo dhadhan ma ku haya dhalankayga xaaskuna dhib weyn bay ku qabaan marka sheekhu dhawaaqo yaan dhabi weyn iyo tooshiyeenta dhawro baxaysto dhabta royal ku qaato yaan sidii dhidar caale ama tuugu dhacayo dhabadii gurigayga dhaaldhool ku baraa dhabigan ku duqayn obyana dhargal moodo iska sii dhalqanaya dhinaca kaga loohaanay ka dhawaajinayaano dhalay weeye haweenku dabeed oo dhirmayaano iska soo dhalowlayno ilaa ku absaamay ama ku maqnaada dhulkiisa muxuu noo dhibayaa ee dhabi noogu garaaxi annagu waaba dhalaalo sidii dheex kala yaaco dhididoo ka xanaaqo dhirbaaxa kaga gooy dabeedna waa isyar dhuubo ciyaalka dhex fadhiisto dhagahan ka fadhiistayeena waa dhalowlays maxay yahay baa dhirbaaxi ama ay dhabanaanin ma dhulkaan raka waaye ma dhaqaaja aroorta waxaasay dhahdaan dhalowala amaansada abwan ma jira gabay saameyn kugu leh ama naftaada oo adiga kugu saabsan tirisay waxaa jira mid abwaarinta Soomaaliyeed suugaanta Soomaaliyeed qiimaysa mid ay igu soo qiimayso aan abwaanka 35 galay ayaa jira sax Soomaaliya ka warbixi xaaladeedu halkay maraysa beriga wuxuu yidhi dadkii jaaliyadihiyo intii kaba jiidnaxday Soomaali jabaa ku dhacay markay isku joog faleen markay jees noqdeen jiilaankoo cadow noqdiyo jamaajuug baa ku kacay badh way jabhadaynayaan badh baa jaakaa u diday badh buu janta laynayaa badh baa gaajaba u jedan badhkoo jolocbaa buu yidhi jaantaa rogan loo dhaqaaq jarmaadiya camal ma jiro dagaalkuna joogsan waa jawiga nolosha khatara jidkay sii wada hayaan sidii janno looga turay badwayntay jeexayaan jidhkoodoo bahalku cuno iyo jiciir bay kala kulmaan haddana joog lagama karo jaheeyii baa ka lumay halkaasay Soomaaliya maraysaa dadkii Somaliland sirtii noloshay fahmeen dhammaan way saamaxeen sulaaxay wada dhigeen samiya nabad loo guddoon xoolii saylad bay heleen berbera safarkaa qulqula badii saaxil waa ammaan intaan saaxiibnihiyo intii noo samanfashaay ku soo soco sacaba furan ayaanu leedahay waa tahay abwan bal waxaad laba hal nooga taabataa gabaygii ahaa siilayaba kii rasuuma geli muxuu ku yimi gabayga wuxuu ku yimi maalintii siilaaya yidhi musabixi la shaqeeya wasiiradii ay wasiirada badan yaaci jireen xirsiyo dee siilaaya ka agtiisa ka soo jeeda ayaa raacay wasiiro baadi ah xirsina waa taageeri jiri marka ninkii aan taageeri jiray oo niman kala raacay ma arkay saaxiib male ruux saraar ku dhashay inkastaad saacido si wacan u gasho sabool nin ku koray sandalag waxajoo siilaayaba kii yaraa si uma gelin saxmadii gobolkeenna saamaysan nimaad sahashataa ku suuldaara abwaan sigradaa warkaa sugay bay ahay abwaan sigradaa warkaa sugay salibaan xasan ilda burco waa tahay abwaan bal haddii maanta lagu odhan lahaa dhalinyarada maanta joogta la tali maxaad kula talin lahaa waxaan kula talin lahaa ummadii islaam baynu nahay ehlu tawxiid adduunyadu waxay taagan tahay aakhir iyo shii
alla ka cabsi mooya wax kale aayatiin male ayaama la joogjoogaya islaawina xaraaba weeyaa adduunku xabaal bayna sugaysa xajiyaa lagu waari mid xaqiiqada raaca oo xasanaad ka shaqaysta mid xumaan ku ilaawa oo xil baan is saarin xaasil waa camalkeena xadiis alcaqli xaqana yaad jeclaysan lahayd halkan inaad uga faa'iidaysatad ka salaamto insha Allah waxaan ka salaamayaa bulshada dhagaysan doonto oo dhan sheegan waxaan ku sii jiraa barnaamijka gabagabadiisii insha Allah fadlan hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir subscribe share like intii waa noo muhiim dheergelin